السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحابتي ولا لهي ميل كستو جوكتان إلهي سبحانه وتعالى وحان كبريا خير كينو نوكل مية هدي جير إلهينا سبحانه وتعالى توفيق دي سنوافجيه. waxaan ayaamahan joogay gobolada waqooyiga ee wadanka Norway. saaka ayaan ka sii baxayaa hadda airportkan jooga. waxaan u sii socdaa caasimadda Norway ee Oslo, kadibna waan ka sii bixi doonaa Khamiista insha Allah taala. waxaan sii aadi doonaa laba safar oo kale ilaahay idankiis oo laba wadan oo kale aan Soomaalida ku soo booqdo, wadanka Ireland iyo wadanka Austria. waxaan rabaa inaan wax yar warbixin ah idinka siiyo kooban Soomaalida degan magaalooyinkan wadanka Norway. taqriiban 16 sano ama 17 sano waan imanayay, waana ku soo noqonayay muxaadarooyin iyo duruus iyo wacyigelin. waxayna u badnayd gobolada koonfurta, gaar ahaan caasimadda Oslo. waa markii u horeysay aan imaado magaaladan Bodo, iyo magaaladii ka horeysay oo aan imi oo sababtana u ahayd inaan imaado goboladan xagga dhexdhexaadka soo xiga laakiin waqooyiga ah magaalada Trondheim. labadaas magaalo ayaan hadda soo maray, Trondheim iyo magaalada Bodo. Trondheim waa magaalo weyn, waa magaalo dad badan oo Soomaaliya joogaan. muxaadaradii ilaa 200 400 ilaa 500 dad ku dhow ayaa jimcadii iyo sabtidii aan kula kulmay halkaas. magaaladan Bodona waxaan joogay Axadii iyo Isniintii. maanta Talaadahana waan ka sii baxayaa. Soomaali badan ayaa degan. waxay kaloo ii sheegeen Soomaali kaloo aad u fara badan inay tuulooyinka iyo jasiiradaha ay aad ugu firqsan yihiin, aadna u joogaan. fariinta u horeysa waxaan u dirayaa culimada, gaar ahaan culimada joogta Scandinavianka ama dalalkan Scandinavianka la isku yiraahdo Norway iyo Denmark iyo Sweden. culimadaas waxaan leeyahay wax yar ayaa ay booqashooyinka culimadu ku yimaadaan goboladan waqooyiga. dadkana waxaa dareemaysaa inay dacwada aad iyo aad ugu ooman yihiin oo saacado dhaadheer xataa haddii ay fadhiyaan aanay ka ahayn. halka caasimadaha waaweyn oo culimada iyo ducaadu ay u badan yihiin sida caasimadaha Oslo ama Copenhagen ama Stockholm ama Göteborg ama Helsinki oo Finland ah, laga yaabo dadka inay yaraadaan. maxaa dhacay? wacdiga iyo wacyigelinta iyo culimada soo maraysa ayaa ku badan. marka waxaan dhihi lahaa fariinta u horeysa culimada inay ka warhayaan goboladan waqooyiga. waana fariin ay dadkuna isoo fareen, ilayna soo booqda, noo imaada, wacyigelin baan u baahannahay, diintii wax nooga sheegaan u baahannahay. waxaan u baahannahay cid maaragtay noo sheegta oo na xusuusisa ilaahay subxaanahu watacaala. yacni dadka oo manaantooda waxaad ka garanaysaa, yacni markaan bilowno muxaadarada ama wacyigelinta casarkii oo kaleeto ama bacdal casarkii 4 galabnimo ilaa iyo xalay midnight habeenka bartamihiis, intaas waxaan ku jirnay yacni wacyigelin iyo hadal iyo su'aal. saaka fajirkii markaan tukanay sidoo kaleeto, yacni su'aalihii meesha waan ka kici waayey. marka waxay dadku u baahan yihiin wacyigelin iyo diin bay u ooman yihiin, sida meel kastaba ay ugu ooman yihiin. dalka gudihiisaba ay u tahay meelo badan oo tuulooyinka iyo gobolada ah ayaa halkan oo kaleetana Yurubta ay ka jirtaa. gobolada iyo tuulooyinka dadka Soomaalida ah oo degan in aad looga warhayo. taas culimada Scandinavia joogta ayaan fariintaas u dirayaa. fariinta labaad waxaan u dirayaa dadka Soomaaliyeed oo mas-uulka u ah hadday yihiin maamulo iyo dowlad iyo maxaan ku sheegay dadka mas-uulka ah ummadda Soomaaliyeed inay ka warhayaan dadkooda ku firqsan, ku kala daadsan adduunka daafihiisa. dadkaagu dalkoodana way jecel yihiin, waxna way ku yihiin, xoogna way ku yihiin, wayna ku yihiin ciidan iyo tabar bay ku yihiin, taageeray ku yihiin. meel kasta oo aan tago waxaan arkaa dalkoodii inay wadnaha ku hayaan, dowladdoodii inay wadnaha ku hayaan, qalbiga ku hayaan, ay sugayaan dalkoodii sida uu noqdo. saas darteed waxaan leeyahay
dowladda iyo maamulka iyo dowladda cusub oo hadda Soomaaliya maaragtay dowladda dhexe ka dhalatay iyo mas'uuliyiinta meel kastaba ha joogaan dadka Soomaaliyeed dadka mas'uulka u ah Ilaahay amarkooda wax uga dhiibay inay ka warhayaan dadkooda iyo shacabkooda ku firqsan adduunka daafihiisa meel kala duwan ay booqdaan ay ka warhayaan danahooda ra'yigooda isla mar ahaantaasna dadka dibadaha jooga waa dad taageero iyo xoog u noqon kara dalkooda iyo dadkooda dib u dhiskiisa iyo taageeradiisa haday tahay dhibaatooyinka ka dhaca sida abaaraha iyo dhibaatooyinka kale oo dhaca iyo haddii ay tahay taageerada dalka iyo horumarintiisa iyo mashaariicda iyo hadday tahay waxbarashada iyo dad badan oo waxbartay dad badan oo aqoon leh dad badan oo shaqayn jiray dad badan oo hadda dawladahan ka shaqeeya khibrado kala duwan iyo waay aragnimo kala duwan isu keenay ayaa jooga dadka Soomaaliyeedna waa bangi buuxa oo ah waay aragnimo iyo khibrad iyo aqoon in laga faa'iideysto ayay iyadana u baahan tahay waxaan kale oo bogaadinaya oo aan uga sheegaya walaalaha halkan mandaqadan masalan jooga mandaqadan waqooyiga dadku way wada shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan warshado waxay ka shaqeeyaan kalluunka oo wadankan Norway sida aan ognahay uu beero oo ka baayac mushtaro oo wax badan oo maaragtay xoolo ah oo lacaga dhaqaalihiisa uu ku taagan yahay khaasatan nooca Salmon la yiraahdo jasiiradahan lagu xanaaneeyo ama lagu bacrimiyo ama lagu beero lagu xanaaneeyo lagu sameeyo Soomaali badan baa ka shaqeysa khibrado badan bay u hayaan wayna ka shaqeeyaan meel kala duwanna way ka shaqeeyaan marka taasna waxay u tahay khibrad in dalkoodii iyo dadkoodiiba ay uga faa'iideyn karaan insha Allah ta'ala iyagana waxaan ku boorinayaa inay dalalkan inta ay joogaan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u qadaro hadduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala keenay waxa weeye inay ka faa'iideystaan oo ay wax bartaan hadday tahay aqoonta iyo technology-ga iyo hadday tahay farsamada si ay dalkoodii berrito ugu faa'iideyn karaan wax uga qabsan karaan waayo inaga dalkeena khayraadkii way ka buuxaan laakiin aqoontii iyo waayo aragnimadii iyo sidii looga faa'iideysan lahaa ayaa inaga dhiman taas haddii aynu isla helno khayraadka aynu haysanay bad iyo berriba iyo dadkii aqoonta u lahaa ee ka faa'iideyn karay waxaan filayaa Soomaaliya inay adduunka meelo hore ay ka galayso insha Allah ta'ala taasna waxaan leeyahay dadka meelahan degan inay sida ugu dadaalaan aqoonta inay ku dadaalaan waxbarashada inay ku dadaalaan qalinka iyo buugga inay isla helaan inta Ilaahay u qadaro ay fursadda ay haystaan ee meelahan ay joogaan midda kale oo ajaayib kale aan idin sheegay adduunka meel kasta ka joogtaan walaalayaal waxa weeye hadda waqtigan aan aeroboortka soo galeynay yani dhulku ma muuqanayn baraf baa socda oo da'ayaha dhulku waa qarsoon yahay aragtidu ma muuqato saasoo ay tahay shaqadii waxbarashadii jaamacadihii iskooladii adduunkii safarkii kullu waa soconayaan waa la dhaqaajinaya barafku soo dhacaya dhulka waa laga sii qaadaya waa laga sii dafaya waa la sii xaaraya yani dadkan iyagoo ku nool cimilo aad u adag oo aanay qoraxda haysan mararka qaarkood oo aanay haysan jawi yani ama cimilo ay ku dhex shaqayn karaan oo dabiici aan haysan barafka soconaya ay tahay dabaysha ay tahay dhulka la socon karin la raran yahay qofku culus yahay oo wax yar dhar ah sida hadda u jeedaan waxa aan isku raray daraad markaan Afrika ka imin aan xabad mid ka qabin ayagoo sidaas ku jira ayay rabaan inay wax ku beeraan ayay rabaan inay baddi ka faa'iideystaan ayay rabaan buurihii inay qodaan ayay rabaan dhinac walba inay ka shaqeeyaan laakiin dadkeena dhulkaas jooga ama Afrika guud ahaanba ama Soomaaliya aan ilaahdee lama shaqeeyo runtii shaqo ma lama hayo dhulku sidii Ilaahay u abuuray oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dajiyay dadku u dagay heer uu yani nin booqday dhulkeenaas iyo dhulka Yemen iyo uu yiri nabi aadan hadduu iman lahaa caruurtiisa ama dhulkii intan uu ka garan lahaa sababtu waxay tahay de sidii uga tagay weeye wax lagu ma bedelin laakiin bani aadamka kale dhulkii uu camiray oo uu ka shaqeeyay oo uu qoday oo uu jafay taasuna waxay ku timi shaqo amal bay ku timi Ilaahay agtiisana amalku aad buu qiimo uga leeyahay qofka bani'aadamka inuu shaqeeyo way inuu jarmaado way bal nabigu aysan buurika li ummati fi bukuriha yani laakiin haddii dhowr saacadood inta la soo warwareego hadhowna qaad loo fariisto goorma shaqeynayaan dadku qaaq iyo qiiq bay ku hayaan kaliya shaqana ma hayaan wax ma intaajiyaan wax ma soo saaraan wax dibadda uga yimaadeen cunaan wax dibadda uga yimaadeen gashadaan
wax ay iyagu dadka u diraanna maba laha haba yaraatee ama adduunka ay ku biiriyaan ama adduunka ay u soo saaraan khayraadkaas la siiyana dad baa si sahla ku gurta bal yacni xataa cawskii xoolaheenu cuni lahayn ama xoolaha aynu dhoofsanno oo khaliijka iyo geysano xataa cawskiisi khaliijka laga keenay waa wax lala yaabo weeye marka ma shaqayno inagu waxaan ogaanaysaa adduunka markaad marto inaynaan wax shaqo ahayn dhulkii inaynaan ka shaqaysanayn inaynaan dhidhidihayn inaynaan fikirihayn inaynaan yacni isku hawlihayn sidaynu khayraadka ilaahay ina siiye nicmooyinka ilaahay ina siiye wax wala soo bixi lahayn dadku waxay rabaan inay iska jiifaan nin hadda iska jiifo oo iska hurda lacagna loo soo diro sugaya gacan kaleeto haddee sacbadaada lagaga dhergaabay dhihi jirta soomaalidu ku mahmahdaa weligiis dhergi maayo qof wax sugaya ama gacan kale sugaya marka waxaan ku boorinayaa dadka walaalahay soomaalida maqlaya ama dalkii ha joogaan ama meel kale ha joogaane shaqada ha la ogaado oo camalka ha la qiimeeyo oo waktiga ha la qiimeeyo oo yacni ilaahay subxaana watacaala kugu xisaabinaya oo asbaabta ha la qaato oo ha laga faa'iidaysto waxa nicam iyo khayraad iyo ilaahay subxaanahu watacaala dhulka uu inoo dhigay oo hareerahaaga fiiri oo eeg oo dhulkeenna wax badan oo khayra ka buuxa ee ha la eego oo dibadda loo hanqaltaagayo meelaha loo hanqaltaagayo inta bal xoogaa fikirka laga soo waabo oo laga soo celiyo bal ha la eego maxaa yaala khayr maxaa yaala adduun dhulkeenna maxaa yaala oo u baahan shaqo iyo fikir iyo caqli iyo cilmi u baahan dadkeediina waynu helaynaa oo isla heli karnaa haddii aynu isla doonanno qofka khayraadkii haya ama meesheedii jooga iyo qofka cilmigii iyo aqoontii haya dad badan oo soomaaliya maanta adduunka wax bartay lacalla diyaasbarada waxaa la yidhaahdo ama kufaafidda adduunkaan ku faafnay inkastoo dhibaatooyin badan ay noo geysatay haddana xikmad kaloo ilaahay inay ku jirto oo dee dadkaasu aqoon in badanoo ka mid yihiin inay aqoon iyo waayo aragnimo iyo xoolo iyo tabar iyo xoog la soo noqdaan dalkeennina insha allahu tacaala mustaqbalka u noqdo dalalka yacni adduunka uguna hodansan uguna horumarsan baan rajaynaya insha allahu tacaala niman dhul marin dhaayama leh bay tiraahdaa soomaalidu dhulka haddaad marto oo socoto wax badan baa kuu muuqanaya wax badanna way kuu caddaanayaan cibrooyin badan iyo duruus badanna waad ka qaadanaysaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa inuu ummadeenna ilaahay khayrka iyo barwaaqada u fidiyo waxaan kaleeto oo ka digayaa dadkeenna waxay yaqaanaan waxyaalaha ceebahan leenahay wax badanoo wanaaga annagoo leh baa waxaa ka mida wixii dhaqaaqa oo wanaag u dhaqaaqaba dad badan oo kaleeto inay u taagan yihiin inay xumaan ka sheegaan inay lugta qabtaan kii dhaqaaqa in lugta lagu dhego in wax laga sheego in xumaan hadda dawladdan hadda dhalatay hadda waa lagu bilaabayaa horay baa waxaa lagaga bilaabayaa ceebayn iyo cay iyo hadal iyo waxyaala maaragtay marka dadkanina waxaan leenahay aynu ku dadaalno khayrka inaynu badino oo kordhino ilaahay subxaanahu watacaala si uu noogu gargaaro aan isu gargaarno oo wixii qofka ka qaldanna loo sheego oo saxa loogu sheego marka hore inta aan maaragtay ceebayn iyo dhaleecayn iyo cay iyo lug qabasho iyo balaayo aan lala imaanin shaqana lagu mashquulo oo wax la intaajiyo oo wax la shaqeeyo oo qofku uu ku mashquulo waqtigiisa geliyo wax ku oola oo isagana wax tari kara ummaddiisana wax tari kara ilaahayna yowma alqiyaama agtiisa uu ku badbaadayo inuu qofku waqtigiisa ku bixiyo sidii nabigeenuba alayh sl slam man kaana yu'minu biاllahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofkii ilaahay iyo aakhiro rumaysan ama khayr ha sheego ama ha aamuso labada coguma dhexeeyaan inuu khayr sheego wax wanaaga sheego iyo inuu iska aamuso dadkuna inay shaqada iyo camalka qiimeeyaan oo ku dadaalaan adduunkan yani dadku wuxuu isku dhaafay shaqo adduun iyo aakhiro labadu camal bay u baahan tahay adduunku shaqu u baahan yahay farsamo u baahan yahay dhidid buu u baahan yahay cilmi buu u baahan yahay socod buu u baahan yahay aakhirana sacyi iyo dadaal bay u baahan tahay si lagu gaaro ilaahay subxana wa tacaala janaysa fa nicma ajru alcaamiliin buu leeyahy ilaahay subxana wa tacaala ajarka wanaagsan waxaa leh dadka shaqeeyey dadka yacni soo shaqaystay oo waddadaas ku soo dadaalay adduunkuna waa sidaas oo kale innaa laa nudiicu ajra man axsana camala qofkii camal wanaajiya oo hagaajiya oo yacni toosiya oo si fiican u shaqeeya ilaahay subxaana wa tacaala ajarkeeda ayuu siiyaa ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo waa idin salaamayaa mar kale waxaan idinka salaamayaa airboortka magaalada bodo oo waqooyiga norway ah iyadoo barafku hadda uu dhacayo ayaa hadda saan idiin sheegay adduunyadu ay kala socotaa oo la shaqaysanaya la ordaya ilaahay subxana wa tacaala tawfiiqdiisana hana waafajiyo ilaahay subxaana wa tacaala adduuniya akhraba kuwa
camal ay ku farxaan oo miisaanka ilaahay subxaana wa tacaala ugu cuslaada allah inagu risaaqo ilaahay subxaana wa tacaala kuwa subax iyo galabba xusa allah naga dhigo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi ajmaciin waa idin salaamay meel kastoo jooga asalaamu calaykum waraxmat ullah